Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada daawadayaal rajada iyo maanta waxaad ka daawan doontaan amuraha islaamka, taariikhaha, layaabka dunida iyo macluumaad kale fara badan. Ka mid noqo saaxiibka dhow ee channelka rajada iyo maanta. Hana ka ilaawin inaad saarto subscribe. Wixii aad jeceshahay inaan ku soo darno channelka, qaybteena commentiska noogu reeb. Mahadsanid. waxaa lagu tilmaamaa qoriga loogu isticmaal badan yahay dunida oo na jecel yihiin mucaaradka ee jabhadaha hubeysan ee adduunka. Sidoo kale waa qoriga kaliya astaantiisu ka dhex muuqato dalalka qaar adduunka. Sanadkii 2004 waxaa lagu tilmaamay qoryaha adduunka yaalay 400 oo milyan halka AK-47 kaligiisu ahaa 100 milyan. Ku soo dhawaad daawadayaal muuqaal aan ku eegi doono hindisihii AK-47 Mikhail Kalashnikov. Inkastoo lagu sharfay ikhtiraacida qorigan ayuu haddana ka helay lacag aad u yar. Markii uu farsameeyay Mikhail Kalashnikov ayuu ku dhashay galbeedka Siberia 10 November 1919 waxaana uu ka mid ahaa qoys ka kooban 19 caruur ah. Sanadkii 1938 ayaa loogu yeeray inuu ka mid noqdo ciidamadii midowga Soviet ee Red Army ama ciidamadii casaa, waxaana xirfadda uu lahaa qayb ka noqotay sidii loogu horumarin lahaa hubka ay isticmaalaan ciidamada taangiyada. Hase yeeshee waxa uu farsameeyay qoriga caanka ku noqday ee AK-47 kadib markii uu weydiiyey askari ay saaxiibo ahaayeen sababta uu Ruushka u samaysan waayay qori la mid ah kan ay isticmaali jireen xilligaasi Jarmalku. Farsameyntii qoriga AK-47 waxa ay dhamaatay sanadii 1947. 2 sano kadib qorigan waxa uu noqday mid ay la qabsadeen ciidamadii gaashaanbuurta Warsaw oo ahaa ciidamadii ugu horreeyay oo isticmaala qorigan. 75 milyan oo qoriga AK-47 ah ayaa la soo saaray inta u dhaxaysay 1994 ilaa 2015. Sidoo kale 25 milyan oo qori oo ah isla qoriga AK-47 ayaa iyana la soo saaray ayadoo sanadii 2000 qoryaha dunida yaala lagu sheegay 500 milyan. 100 milyan ka mid ah uu yahay AK-47. waxaa qorigan si rasmi ah u isticmaala 106 dowladood oo adduunka ah halka 30 dal ka mid ah ay ku sameeyaan dalalkooda, waxaana lagu tiriyaa hubka ugu badan ee sida weyn u adeegsadaan jabhadaha iyo argagixisada. Dhimashada uu sababo qorigan waxaa 2 jibaar ka badan tahay dhimashada ay sababaan madaafiicda iyo gantaalada. Askarigii hindisay qorigan waxaa la siiyey bilidooyin badan oo ka mid ahayd The Hero Socialist Labor, laakiin nasiib daro maqalkiisa ayuu ku beelay tijaabooyinkii badnaa ee uu ka sameeyey qorigan. Kalashnikov waxa uu diiday inuu aqbalo cunsuriyadda ah dhimasho badan uu sababay qorigan, waxaana uu ku eedeeyey siyaasadda dalalka ee caalamka inay sabab u tahay dhimashada uu sababo qoriga AK-47. aad ayaa ii dhibtaa marka aan arko dad dambiilayaal ah oo ridayay qoriga aan ikhtiraacay, ayuu yiri Kalashnikov 2008. waxaa lagu tiriyaa 3 hindise ee ugu saameynta badnaa adduunka qarnigii 20aad. waxa uu dhintay Kalashnikov sanadii 2013 waxaana loogu sameeyey aas qaran dalka Ruushka. ma ahan qofka dadka si fiican u yaqaaniin, laakiin waxa hubaal ah dadka dunidan ku nool badankood ay si weyn u yaqaaniin qoriga uu ikhtiraacay ee 60kii sano la soo